بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد odayaasha dhaqanka labada beelood oo walaalaha ah culimada dhalinyarada madaxdii hore xubnaha ka jooga iyo waxbarashada dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaam runtii intii la oran lahaa halkan labadii dhinac baa ka yiri aniga waxa uu ii harsan waxa weeye walaalihii wax codsaday oo aad loo ajiibay iyo kuwii soo dhaweeyay oo wax bixiyay labada dhexdoodaba inaan mahad celin ka sameeyo waxaad moodaa su'aal celinta su'aalo badan baa laga sameeyay laakiin in baa wuxuu yiri halkan ka yiri odagii ninka hoosta ula hadloo yiri wariya garka igu dhig hayga fuqin inay ahayd hayga fuqin inay ahayd marka hayga fuqintiina walaalkii ehelkii waa soo dhaweeyeen inaysan naga fuqsan oo yiraahdaan waqtigu hadduu dheeraadana sidaan oo kale in la isku yimaado waa muhiim weeye waa loo baahan yahay waayo dadka qalbigiisa iyo wada jirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo aragtidiisa iyo rabitaanka cidda wax rabtaa waxa ka muuqda iyo walaalka wax laga rabo lafsirkeeda dhamaystirkooda ay ku fadhiyaan waxa soo dhani wanaaga iyo sharafka labada dhinac bay runtii muujinayaan siyaasiyan kursigani waa kursi Soomaaliyeed weeye Soomaaliu ka dhaxeeya xildhibaanku markii halkaan uu ka baxo magac Soomaaliyeed buu yeelanayaa sharaf Soomaaliyeed buu yeelanayaa intaana magacaasi sharafkaasi qayb ka yihiin hadduu xildhibaanku xumaado oo magacii iyo sharafkii uu lahaa Soomaali dhexdeeda uu ka xumaado waxa la yidhi maxay ahayd reerkeedii gabta reer kale mar hadduu Soomaali ka xumaado hoostana waa ka xumaanaya marka waxa muhiim ah xildhibaanku xildhibaan Soomaaliyeed oo Soomaaliya sharaf kale xisaab kale qiimo kale waxa xildhibaan laga rabo oo sharciyada Soomaaliyeed iyo Soomaaliya inay system hesho ka shaqeeyeen Ilaahay ka dhigo xildhibaankii noo soo baxa rabitaankayga runtii waxaan ku muujinayaa dadka qofba waxbuu ka fakeraa wax badan oo ii muuqda ayaa igu riixaysa inaan kursigan soo doono dadka maantay intan iyo inta wax la leh runtii dhexdooda wax ku bartay baan ka mid ahay waxa halaysan u jeeda waxa la haysto in la qaybsan karo oo dadku waxay haystaan qaybsadaan waxa ka maqan ay raadsan karaan runtii waa muhiim xildhibaan wax raadi kaliya inay saahayn haddii wixii la haysto dadku inay noqdaan wax ay u siran yihiin waxyaabaha naga maqan bayna ka mid tahay waxa aan haysano inaan aysan ahayn wax si nidaamsan iyo tala nidaamsan oo qof walba meesha ka hadla odayaashii Reer Cabdo meeshan hadlayay wixii ku fiicnaa wixii la oran jiray kugu san inay tahay aysan hal dhinac ka rarmin muhiimadda rabitaankayga iyo inaan kursigan uu noqdo kursi dadka ka dhaxeeya wixii dadku ay helaan oo dadka ka dhaxeeyana si wadaaga oo nidaamsan oo ay ku jirto rabitaan ku jiro kalsooniyo ku jirto dadka taladoodu ay ka muuqato raallina lagu yahay in looga fakaro qodobkaasi waxa waaye waa wixii dadku helo sidii hadda la tilmaamayay inaysan hal dhinac ka rarmin ay noqoto wax dadka taladiisa ku xiran waxa dhab ah dagaalkan dadka xoolaha ka raadinaya ka mid maahay dadka ka raadinaya inuu ilmaha ku korsado ka mid maahay laakiin waxaan ka raadinayaa wax badan oo dayacan
oo intaan dhexdooda ka dayacan waa run weeye oday baan ahay wax badan xoogaal ah taasina waxay tusinaysaa meeshaan inaan imaado oo dadkan dhexdooda imaado xaaladooda iyo waxa jira iyo xuquuqdoodaba ay helaan waxa weeye waa muhiimadeeda koowaad weeye waa middan aan ka fakarayno meel kasta oo naga midi ay tala rabto nabaddu talay rabtaa deegaan dhibaataysan colaadaysan u baahan siyaasiyan in maaragtay dadka iyo deegaanka loo difaaco wixii dadka ay oran jireen idina uma maqnaa ilaa uma qodna maanta meesha aan joogno weeye haddaan siyaasiyan dadka iyagu aysan nabad u helin ama aan lagu hogaamin inay nabad helaan horumarka intiisa kale macno ma samaynayso markii nabad la helo baa laga fakarahayaa caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankii intaasiba waxyaabaha dadkaana ay ka cabanayaan ayay ka mid tahay sababaha halkaana inaan soo aadno nagu riixaya mar haddaan aan leeyahay siyaasadda xoola ka raadin maayo waxa aan ka raadinayaa inay noqoto inay intaan horumar ka hesho intaan inay horumar ka heshana inaan halkaas soo gaaro waxay ku xiran tahay israaca iyo midnimada halkaan aan ka helo mar kale walaalayaal walaalaha cabdi daawud waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqeeyo markaan kalsoonidiina helo xildhibaan aan leedihiin inuu noqdo xildhibaankaan deegaanka uu ka muuqdo isbeddelku uu soo baxo magaca iyaga iyo sharafka Soomaaliyeed aan ku leenahayna aan kor u qaadno aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa fadhigan adinku ku celcelinta aad u aragteen aniguna baalka la yiraahdo aniguna aan u arkayo intaanoo midaysan waqti dheer ka bacdi maantay waan isleenahay jaaniskii waa dhow yahay inaan ilaahno wadada guusha waxay ku xiran tahay midnimadiina dadaalka iyo xisaabtana waxaan ogolahay inaan noqdo xildhibaankii koowaad oo lala xisaabtamo